sharaf iyo mudnaan ayay ii tahay in qaar ka mid ah suugaanteeda lagu ababinayo bulshada Soomaaliyeed si gaar ah dadka wax baranayo lagu dhiirigelinayo si gaar ah maansooyinka af Soomaaliya ku saabsan ay ka mid tahay hadda maansadan halkan ka muuqato oo akhrinaya macalinkan una dhigay ardaydiisa مثلا عريت ياله أستاذ أمين عريت ياله أستاذ أمين